wasiir iyo afar u subcinayso sacabka u tumaysa ayaa teendhaha halkaa kale oo orday odayadu waxba war uma hayn waa lagu dul dhuftay teendhaan xidhaynaa shirka ka soo qayb gala waxaasina waa kayra sharci weeyaan xal ilaa habeen hore waa la ogyahay geerisa inay dhex fadhiyaan xero ciidan oo teendho laga dhisayo oo ku wareegsan yihiin waa la ogyahay ciisuhu waa ka warhaya intaanan meesha laydinku leynin ayaan leeyahay degdeg uga soo bax 24 saacadood haddaad kaga soo bixi weydaan wax idinku dhacay idinka isku geystay farsamo xumida ku dhacdan in sheegaya ciisaha dad dhalaana matala dad aan aqoon lahayn baa matala dad in dhow arka oo yoomiye arka ayaa ciisaha nomination u ah anagu ma keenin day nalama weydiin waqtigaa keenay haddii dawladdu ay tahay dawlad caadiya oo stable ciddii ay tiirsatay ay kala xisaabtanto dhibaatada meesha ka dhacday ciddii bilowday ee sababtay ee mushkiladda ummad nabada waxaa ula tegey ee cuqaal degaan ku xidhnayn ee aqoon-yahan ku xidhnayn ee mataqaanaa dad mansab haya ku xidhnayn ee ka raacay bajetka loogu talagalay nabadgelyada inankii teendhada qaaday iyo kooxdii u subcinaysay unbaa dhibaatada halkaa kow ka mas-uula dawladduna iyaga ayay kala xisaabtamaysaa aad baan idin salaamayaa bahdiina saxaafadda ee heeganka waa habeen iyo maalin dalkooga iyo dadkooga inay u shaqeeyaan marka hore awalan waan islaamayaa markii xiga ilaaha isku keenay baa mahadle haddaan u soo noqdo su-aashaadii ahayd arrinka gaarisa ka dhacay maxaa sababay waad ogtihiin oo deegaanka shaqaaqaha ka dhacday aniga iyo reerka abtiyaashaya ah oo aanu nahay daliihila oo wada yaalla dad carabiya labadiisa daanba weydiiyaan hase yeesho dawladdu may abareegarayn qaabkii ay nabaddu u dhici lahayd sababtoo ah wasiir baa matala beesha ciise xukuumaddu waa u yeedhay nasiib darro xukuumaddii iyo madaxweynihii iyo ciddii halkaa joogtay xaqiiqada wasiirka ciyaaruhu uma sheegin dad aan cuqaal ahayn dad aan degaan matelin ayuu u yeedhay uu madaxweynaha horgeeyey tii cawaaqib xumida ka dhalatay wanigaa arkaya inigoo saxaafada ummadda reer somalilan iyo jamhuuriyadda somalilan dadka ku noolay way iskala socdaan waayo dadka dee odayaal bay leeyihiin degaanku cuqaal bay leeyihiin ma garanayo wasiirka arrimaha gudaha cabdalle ilduufka intaa leeg ee ku dhacay aad iyo aad baan uga xumahay cabdalle waxaan leeyahay wasiirka arrimaha gudaha cuqaasha aan kuu sheegayaa waa kuwii aad degaanka ugu tegtay anigoo ibraahim xasana oo nin brofeseera waa adigii igu yimid gaarisa wanagii inagu xabal joojinta wada qaadannay odayadii kula qaatay dee odayadii dhaqanka ee cuqaasha ayay ahaayeen anoo ibraahim de ma yihi caaqil ma yihi wasiirku inuu ilaa xadkaa ku qaldo aday meelka dhac kugu tahay taasina waxaa daliil kugu ah cuqaashii cabdulqaadir jidhi ceelgaal gaarisa lawiyacdo aashacado saylac dhammaantoodba way ka hadlayaan wasiir iyo afar u subcinayso sacabka u tumaysa ayaa teendhaha halkaa kale oo orday odayadu waxba war uma hayn waa lagu dul dhuftay teendhaan xidhaynaa shirka ka soo qayb gala waxaasina waa kayra sharci weeyaan waxaan leeyahay dhibaatada ka dhacday gaarisa waa dad sibilyana waa shacab wax jabhadii ma joogaan dawladda may weerarin sababtu waxa weeyaan aqal yaroo cariishoo gubtay anooba iminka ka soo maqan muddo 13 maalmood ama 14 maalmood dee aqal cariishoo la gubay aroornimadiiba waan xalliyey wasiirkii ciyaaraha oo jooga kii xildhibaanka sheeganaya oo jooga dadka shacbiga very simple waxay ahayd war waxaa xalay dhacay odayadii degaankow noo kaalaya inay kala hadlaan war waxaa cariishkaa la gubay garan mayno wax gubaye bal ka soo tala bixiya waa daabiyad waad garan kartiin daabiyadda inayna waxba qarsoomayn oo ayna waxna ku dhuumanayn nin dan loo xitaa doonaya dadka inuu isku diraa kuma dhuuman karo
nasiib darrada dhacday wasiirkii iyo ku ku-xigeenoo boorama joogay iyo qoladii u subcinaysay arrinkoogii uu socon waayey madaxweynuhu uu ilduufay wasiirka daakhiliguna uu ilduufay dad buu wasiirku horgeeyey aan cuqaal ahayn ayaa dawladdii inta loo geeyey lagu yidhi waa kuwan odayadii shirka qabanayey ee nabadda u fadhiisanayey waa kuwan wixiina been bay noqotay wixii dhib ka dhacday anoo halkan ka tacsidaynaya dhibaatada halkaa ka dhacday oo aad uga xun oo ka tacsidaynaya labada dhinac dadka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay waar sababteeda waxaa leh ninkii teendhada halkaa ka qaaday ee dawladdana beenta u sheegay haddii dawladdu ay tahay dawlad caadiya oo isteebula ciddii ay diirsatay aad kala xisaabtanto dhibaatada meesha ka dhacday ciddii bilowday ee sababtay ee mushkiladda ummad nabada waxaa ula tegey ee cuqaal degaan ku xidhnayn ee aqoon-yahan ku xidhnayn ee mataqaanaa dad mansab hayo ku xidhnayn ee ka raacay bajadka loogu talagalay nabadgelyada inankii teendhada qaaday iyo kooxdii u subcinaysay unbaa dhibaatada halkaa kow ka mas-uula dawladduna iyaga ayay kala xisaabtamaysaa dee nabadii dad baa doonaya inay xidhaanoo saad sheegtay taandhadii howlii waa dhow dadna way ka soo horjeedaan wixii khasaaraha ka dhashay iyo mas-uuliyaddeeda leh ninkii teendhada qaaday iyo xukuumadda ka mas-uula wasiirkii iyo kooxdii la socotay iyo xukuumadda ka mas-uula adiguba caqlaad leedahe waxaa jira waa xilli munaasib eg shay kastaa munaasib buu baahan yahay shay kastaa oo aad qabanayso shay aan ehel u ahayn adoo iminka saxaafadda ka shaqeeya haddii lagu idhahdo kaale biyaha ka shaqee ceelka biyaha qod dee farsamo iyo caqliyo technical buu kaaga baahan yahay marka waxa weeyaan mas-uuliyad xilli munaasiba may ahayn xilligani waa xilli xagaaga dadku hawlay leeyihiin cuqaashii degaanka ahayd ee rasmigaha wasiirku intuu gaadhigiisa qaato farsamo xumida ku dhacdaan idin sheegaya ciisaha dad dhalaanaa matala dad aan aqoon lahayn baa matala dad in dhow arka oo yoomiye arka ayaa ciisaha nomination u ah annaguma keenin dey nalama weydiin wakhtiga ayaa keenay intay baabuurka haystaan inay dadkii u tagaan ilan lacag bay ku qaateen dadkaa dhibaatadu ku dhacdee ooy odayada xaqiiqada u sheegaan ooy u warceliyaan oo dawladdu waxaanay naga rabtaa khilaafkii innagii iyo reeabtigii ina dhex maray in loo fadhiistaa la doonayaa dee xukuumaddii baa ina doonaysay dawladda kaaleya u tago oo inigaa cuqaale oo wasiirkiini matalayaan kaaleya dawladda arkay ahayd ma inuu dad suuqa ka ururiya ahayd haddaba wixii farsamo xumo ka dhacda ninba waxaan u hayn ma noqon karo anuu caaqil ma noqon karo xuseen waaberi ma noqon karaa caaqil dhibaatada meesha ka dhacdayna adeero wayna damqaysaa dadkayaga waan la dhibaatoonaynaa waa farsamo xumi ee yaan laga dhigin ummadda reer somalilan ee caqliga leh ee aqoon-yahankaa ee iliidkaa ee salaadiin leh ee waxgarad leh waar yaan loo bedelin ciisaa nabadgelyada diidan yaan loo bedelin ciisaa xero milatari soo weeraray waar yaan loo bedelin war hadalka xaqiiqadiisu waxa weeyaan xaqiiqadiisu cid dawladda oo farsamo xuma ku dhacday dawladda oo diratay dad ducufa ah oo liita ooy wasiire ka dhigatay ya cabdalle waxaan leeyahay cabdalle waad ilduuftay adoo wasiir garanaya duqaydii iyo odayaal ayaa ina keena wasiirka ciyaarihii taladiisii aad qaadatay waxaasay dhashay xukuumaddu dadkii ay laysay ha iska dulqaataan ha iska dulqaaddo arrinkaana meel ha dhigto xilligana xilligii macnaha ee nabad la qabanayey nabadda xiisu ma diidana annagaa ogol laakiin munaasib ma aha bismi illaahi araxmaan araxiim waad mahadsantihiin warbaahinta aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa hadalka brofesorka ayaa kulliba dhammaystiray intii ugu muhiimsanidna ka hadlay mashaqadaa maanta ka dhacday magaalada Gaarisa runtii mas-uuliyaddeeda xukuumadda ayaa dusha laga saaraya biyaanoo dee waxa weeye yay u qabanaysaa shirka nabadda yay kala xaajoonaysaa shirka nabadda yaa shirka nabaddan la sheegayo
loo fadhiisinayaa goormayse dhacaysaa muhiimadda waxaa weeye in dadkii deegaanka uqaashii salaadiintii laga wargeliyo lala soo tashado taasi may dhicin nasiib darro deegaanadii oo dhan uqaashii oo dhan salaadiintii oo dhan waa wada hadleen runtana waa sheegeen diyaar nooma nihin bay yidhaahdeen maamaah baa jirta odhanaysaa ciise waa wada ciise nina caarama dhaya runtii saddex oo ciisuhu wadaaga ayaa jira xeerka ugaaska iyo dhulka marka waa ka midaysan yihiin laakiin waxaa taa loo baahan yahay si deggan dawladdu inay uga hawl gasho wasiirka arrimaha guduhu waa ilduuf waxa ku dhacay haddana annaga waxaaba loo aragnaaba shirkan jujuub inuu yahay waa la jujuubayoo qasab macnaha afartii hargeysa ka tegtay iyo wasiirkan iyo damalaha beesha samaroon baa la wada hadalsiinayaa ciise iyo lama wada hadalsiinayo samaroon macnuhu waa sida ayadoon diyaar loo ahayn ayadoon la israali gelin ayadoon la kala bogan baa waxaan la geeyey meesha horta intaasaan taa ku soo koobayaa waxaan kaloo mahad celinayaa odayada dhaqanka salaadiinta isaaq oo maanta ka hadlay warbaahinta si fiican bay uga hadleen intii waajibkoogana waa ka hadleen dawladdana waa la hadleen waxaa meesha ka dhacaya dawladda ciidankeeda inay xakamayso ayaa muhiima ciidankeeda shicibka inay ku sii dayso maaha inay xabadi dhacdo maaha runtii hadday xabadi dhacdona ta meel walba qori waa yaallaayo dee gacantaa layskula tegi ciidankeeda dawladdu ha xakamayso shicibka anagu waxaanu ka gonahay nabadgelya aanay u joogeen mushkiladduna waa dee arrintaa aan bislayne meesha lala tegey bay ka bilaabmaysaa dawladdu waxa ay meesha gesay dib hawla soo noqoto arrinta dib ha uga noqoto intaasaan ku talinayaa wasiirka arrimaha gudahana waxaan leeyahay walduufkaas uu dhacaye qaladkaaga sax wasiir qaladkaaga sax baan leeyahay runtii inaannu ka hadalno warbaahinta waa nagu qasbaysaa inaannu xaqiiqda sheegnona way nagu qasbaysaa waxaa kaloo intaa ku darayaa hadduu eebba kuu roon yahay nimanka wasiirka la socdo ee ciise runtii dadka runta uma aanay sheegin hadduu wasiir yahay haddii cid kastoo meeshaa tagtay xaqiiqda maa sheegin dawladdana been bay u sheegeen ayaguna dadkii degaanka been bay u sheegeen xalay ilaa habeen hore waa la ogyahay geersa inay dhex fadhiyaan xero ciidan oo teendho laga dhisayo oo ku wareegsan yihiin waa la ogyahay ciisuhu waa ka war hayaa intaanan meesha laydinku leynin ayaan leeyahay degdeg uga soo bax 24 saacadood haddaad kaga soo bixi weydaan wax idinku dhacay idinka isku geystay nimankaana sidaasaan leeyahay